Sh.Xasan laakiin taariikhdii soo kooban oo isaga aan ka qoray buugiisana ku taala Somali history haddaan in yar korxaadiyo Maxamedrashiid horta anagu waxaan isbaranay 1999 inkastoo aan dhageysan jiray markii shaqada BBC aan bilaabay Maxamedrashiid Sh.Xasan marka qaybta tababarka ayuu isaga yoonisiyo oo marka la bilaabay program BBC-du ay dadkan suxufiyiinta Soomaalida oo dad badan aan filayo marka halkan taagtaagan ay ka faa'iideen ayay laf dhabar u ahaayeen markii dambe la dhanaantay sanadii barku maqnaa 2003 aad baan sii baranay nin wariyaabo ahaa nin aqoon-yahan ahaa nin researcher ahaa nin Allahumma salli ala Maxamed siyaasi uu noqday markii dambe Maxamedrashiid Sh.Xasan wuxuu ku dhashay Boorama 1900 iyo 46 sidoo sheegay adeerkii Cabdi Xasan Buuni ayuu dabadeetana ula raacay awaare oo markaasi ay xukumayay oo reserve area Ingiriisku dabadeetana halkaas uu ka galay dugsiga hoose dhexe dabadeedna wuxuu yimi markii dambe sheekh buu tagay 19 ilaa iyo 1964 ayuu dabadeetana secondary sheekh uu dhamaystay sida Cabdiraxmaan oo Cali halkan uu ka sheegay marka shaqada bank ayuu bilaabay magaalada Burco ayuu ka bilaabay oo aad iyo aad uga sheekay jiray hadii sheer dabeecadeeda hargeysa ayuu banka isagana uu ka shaqeeyay markii dambena Milano ayuu tagay wadalka Talyaaniga ayuu tagay dabadeetana waxbarasho ayuu tagay oo xagga nidaamka bankiyada caalamiga ah ee LC-ga iyo arrimaha la sheego ayuu ku bartay 1987 markuu dhameeyay wuxuu tagay kuma soo noqon Soomaaliya iyo Muqdisho ama se magaalooyinkii kale toos wuxuu tagay dalka Ingiriiska wuxuu galay jaamacadda la yiraahdo Greenwich wuxuu ku qaatay shahaadada koowaad ee BA-ga cilmiga sociology la yiraahdo cilmiga bulshada oo uu ka qalin jabiyay 1981 sidoo sheegay 1982 ilaa 84 waxa uu galay iskuulkan macadka daraasaadka Afrika ee jaamacadda London University taasi ayuu ilaa shahaadada labaad ee MA-ga iyo PhD oo uu waday oo buugga uu qoray Somali history aragteen uu ka qoray ayuu dabeetana oo 2003 buugga uu qoray ayuu taasi ku jiray wuxuu ku biiray BBC-da isagoo xagga jaamacadda ka dhigta 1985 qayb muhiim ah ayuu isagoo waliba gaar u ahaa oo na dheeraa marka la eego xagga barnaamij soo saaraha iyo tabinta barnaamijyada qaybta la yiraahdo listeners research oo dadka ku dhageysanaya inaad la socotaa qaybtaasi ayuu isagu markaasi may jirin digital kan iyo may jirin iyo Facebook iyo markan wixii markii la ogaanayay waraaqii posta ayuu soo kala shaadhayn jiray barnaamijka waraaqda u socotay weydiinaya warcelin warqada u socotay maqashiiba daali warqada u socotay cabasho ah warqada u socotay ila tali marka sidaas uu ahaa halkaasi waa halkan uu ka sameeyay dabadeetana qolkan kaydka warar hadalkuna isagu hoos imanaya cajaladaha oo dhan waa halkan uu ka faa'iideeyay ee uu barnaamijyadan sahan ee uu isu ururiyay intii muhiimka ahayd oo dhan ee uu ku duubay cajaladaha weeyaan ee aad aragteen Maxamedrashiid dabadeetana inta halkaas ka shaqeynayay muddo markuu shaqeyn uu ka tagay markii dambe halka yimay barnaamijkan tababarada waxa kale oo jirtay inuu siyaasadda ku biiray sanadkii 2001 xisbiga kulmiye oo mucaarid ahaa ayuu jagada madaxweyne xigeenka tartamay oo Cabdiraxmaan oo Cali ka helay dabeedna xisbiga u cid buu galay wuu tartamay oo madaxweyne xigeennimadii uu doorashadii 2010 ayuu Faysal Ali Waraabe oo madaxweynaha u tirtay madaxweyne xigeen oo ahaa dabeedna laakiin watii laga guuleystay xisbiga kulmiye ku guuleystay Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo Cabdiraxmaan Saylici madaxweyne Axmed Siilaanyo oo ay isku barteen halgankii intii 80aadkii waqtigii dambe ayaa u magacaabay la taliye ka dhigtay la taliyaha dhinaca i'tiraaf raadinta ee Somaliland ka bacdina wasiir dawlaha arrimaha dibadda ayuu dabeedna u magacaabay shaqada isagoo ku jira dhowr sano ka hor wadinkii ogaayay ayuu xanuunkan stroke iyadoo loo dabaaldegay maalinta qaranimada Soomaaliland 18 May London oo jaaliyadii oo dhan iyo madaxweynihii oo dhan fadhiyaan ayuu dabeetana ku dhacay si wanaag uu ka bogsaday inkastoo xusuustiisu ay mararka qaarkood laakiin tii alana markaa xalay u timi ilaahay ha u naxariisto Maxamedrashiid Sh.Xasan intaasan taariikhiisa